waxaan maqlay inaad aroos gashay macnaha like adiga iyo inaad aroosaysaan oo aad maxay aheeday xoogaanoo haba u sheega garlama fahmin waa xishoonaya what is it called like waxaa maqlay iyada inaynan baxaynin like maariishoo kale inaynan baxaynin adig koona is aroosin maxaa nooga jira marka micnaha taas marunbaa mise thank you waxaan ku dhahay inaa aroos gal rabtid oo maariish aroosi rabtid maqlay maxaa ka jiro hay hadalka macmacaane atriisho jiljilaa ma dhahay be adeegale wax ku fahmeeye qawda maqasheed awalba waa ogaaye wallahi xaqiiqda markii laga hadlo aroos ma galo arooskeyga maan qarina aniga ya nin wax qarsan kara ma qof la qarin karana meesha ma joogto nin wax qarsan karana ma yani may ma jiro wax jiro ma waa been wax ka jira male waa maqashiin wallahi daclan ka hadle waa maqashiin wax jira malaha wallahi daclan ka hadle labadan beri suuqa la soo geli laakiin wax jira ma we all know that haba aaminina mar dambe ninkan haba aamin ana waxaan ka baqaa Soomaalida dhahdid ifiiri zayn alla maslaxo waa imaatba ifiirse kuu gasho maslaxo intee la keeno micnaha inaa gabar la imaato dhaa samee waa ikan anigoo zaak gabar baan aroostay gabadhi jafaamad qantiin saaxiib lilaahi aan kaa xanaaqin aan kaa xumaanin oo mar walba ku wato oo madaxa ku saarta le la jafaamo ogido ya naga dhammaada marka dadka waxay leeyihiin waa jafte haloo yaran ku ammaano ma ogido waxaan dhibad qaataa yaa la jafaamo taqaantiinaan dhe saaxiib lilaahi oo madaxa ku saarnay oo kaa xanaaqin oo xumaan kuu qabanayna la jafaayaan dhe ma fahmino qof cuqdad qabo oo meel la fadhimo la jafaayo marka fiiri jirkeyga meel kale waa ka jaftuma weyse afkeyga maxaa ku daba dhigay meelo kale jira meelaha gabdha waa ka qurxoonta meelaha gabdha waa ka qurxoonta halka meelood meelaha kale waa ka qurxoonta raalia sorry سؤال دقيقة كيلالي ما ولا إلى الله أنا والسؤال دقيقة إن جواب ديار وميبا هادان كان لكري ماشي لكرو والله كل سكر أما ما حاسكو دقاشة هادان لكرو قف وعلم no absolute not impossible هو كهربائي no تسمع أنا وانكو شاقة دين هذا قال ضدك في فيو يويدي سؤال آخر عن نعبنتها إيشاب سؤال آخر عن نعبنتها إيشاب ولقى سؤال ويدي عن نعبنتها مجرى سؤال آخر عادي أبي دوسا عادي أبي دوسا دي قد قاله يا كأقل بنت لكن ضدك خار gacmaha inaysan ka daalayna u malaysaa what's wrong caawa khaldan ma jir sunona warkiinay mateeqaaye dhinacayga la maraa waa kaas caawa marka saa la isku fiiriye maa ka dhacday haye asxaab kuraa lagu kala badinoyaa manoo kala raysiin su-aalayaana soo tuurane iyo waxaan isku hene ya balcaawa maxaa dhacay balcaawa maxaa shib loo yahay ya sugba dadkan ka saami jooga mistiim oo ma ku dhiglela ii joog yaa waay qofka ani miyaa mise new york fani jaax ii soo dirtay shirkadayda wax ii soo dirtay abo team oo ku dhigle itiibiya cabitaan ku dhigle ma ila joogaan soo dhawaada that's my shirkad guys shirkadayda ii soo dirayso kabax igu halay oo weydiinay
هيا gabadhii ugu horreysoo shirkadeeda lacag usoo dirtaa ma fahamteen gift usoo dirto last minute last minute last minute last minute last last minute minute last minute shiish badin maysidee سميح عاوة اسكا قراعة معاوي عيالة libaaxayga yimid bas waa badina tan anaa hubo inaan badinay qawar yaa ciyaarta allahu akbar maanta adoo lagu shukaansana ujeediyey barnaamijka shukaansi alla ma aragtee dirisle barnaamijkaas shukaansi goorme uu hadalayay maantu bilaawo shalay uu bilaawo hay war maalinkaas anigaan ku dhehe ma ogiye wallaahi bilaa had inuu dib usii dhigu caajislow haye anaa dheh hadda iska bilaabo barnaamijkaas innaa lilah haddaan galabta waxaan dhahay makasay saddex gabdhood i shukaansaday ii balami aan dhahay anii balami saddex gabdhood ay shukaansadaan goor mu sheegi jira mataqaantaa livekaas barnaamijkaas maxaa waay livekii oo masaakiintana xataa maanan bilaabin magti barnaamijkaa markuu sheegay hadda waa guurguuranaaye le sabiya ani waxaan rabaa ani gabdhii shukaansanaya rabaa ani sa ugu xarakeynaya fiiradi haa ani xataa saddex wiil oo yaryaraa la ii keena mogtahay oo wiilal yaryar ah wiilal iska dhalinyaro ahaayeen rag yaraa ma gala abay nafaqa dare le haysimooye rag yaraa ma gala wiilal yaryar ay ahayn ani sidaa u arkay midda kale social media ma ku jirin qof caana haddaa tahay waxaa lagu keenayaa saddex wiil oo adig wiilba saddex gabdhood oo caan ahayn baa lagu keenayaa ma ishukaansadaan leh gabdhaha inay ishukaansadaan aro abuu qurux ku dhiigle laantaada ma noolaan karno maalintan ku aragna abuu macaag adig lee suuroodaan jeclayda adig wixii jeebkay ku jirna waa lala bixi karaa haddii lee suurooda adig abuu qurux ku dhiigle ragga zamankan jooga adiga ugu shidan maalintan ku arka wadnaha waa i qaadqaadma balaa igu dhex shallaysata yaa waalidiintayda adankaa jeclay waxaasoo kale leedhaa raba anig wixii jeebkay ku jirna waa la qaadana waa lagu dhex shallaystaya haa abuu qurux ku dhiigle sigis baagaada markaan aragna waxaan xasuusanaa buurtii surad iyo kilimanjaaro walaalo waxaa muruq maa ka wadaa loofkaan le laba xabal iisoo diraa dhashi siid kale iisoo diri kara ilaahay sare waxaan rabaa in leedhaa lugahaada markaa aragna qurux ku dhiigle waxaan kusoo xasuusanaa taaladii baariis si waweynle gabdhasaas ii ammaanaya rabaa anig baalkan loofka saale gabar daanyeer ii noqo maa anig shaxaad may ugu imaado mis shukaansi haye hal tareen ku furo tagiye war qofkaas oo dadka bixinayo qeyr ilaah ku siiyey aruuri currently ka xir live dambo anigu soo galaya arkin stubrint haye kaalehe argeemkaa ma ii badisiino hay maxaa ilimaa imaan waa soo dhaqsana u maleynaa yaa niyo waa soo dhaqsana raggi aan u joogaan oo ku dhalashadeedu waa umaleyna niyo fanijahay kambanigeyga ee lacagta yareeda arursada kambaniga waa iisoo dirtiro lacagteydii alla kaadlaandheeroway lacagteedii tartiiba lacagtii leebal iisoo celinoyaa gabare kambaniga ku soco waree kaali kambaniga id soo adee anaa kala waa kana new furniture alaabta oo wuxuu gadaa maxaa la dhahaa isheeg alaabta guriga decorationka guriga wax walba ee qurxinta guriga yes adig laakiin markii kor laga arkay social media qof waxaa u qaab egtahay business aan ku jirin iska farxaane iska baashaala social media ku tarax tagay laakiin noloshaada privateka balaayaa ku jirtaa maxaa waa adig yeah you know me ganacsi ani wallahi cause ani ma taqaanta ana dadku waxay aaminsan yihiin u maleena
dukaan la furto ama saaluun la furto ama adi waxuun bas ka micnaha dukaan waa furan kartaa businessyo badan oo kalena waa yeelan kartaa ma fahmino laakiin dadku maxay aaminsan yihiin haddaan meel yar oo shoolada aan wax yar ka furto bas lagu leeyahay qofkaas waxaa waaye yaa waa u fadhidaa